shirkadda Cadceed Group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa. bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka caawa idaacadda kulmiye waxaa ugu dooroon dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dad loo soo qabtay kufsi dhowaan gabdho yar lagu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. gudoomiyihii xilka laga qaaday gobolka Hiiraan oo sheegay in ciidamo ka tirsan ilaalada madaxweyne Waare ay weerar ku soo qaadeen. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ku eedeysay inay weerar ku tahay warbaahinta madaxa bannaan. ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo dad looga shakiyay inay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay Jowhar gacanta ku soo dhigay. carruur iyo dumar lagu laayay dagaal beeleedyada ka socda gobollada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose. haddaba maxaa xilligan dib u soo cusboonaysiiyey dagaal beeleedyada? warbixin ayaan idinkaga haynaa. iyo madaxweynaha Filibiin oo amray laamaha ammaanka inay toogtaan qofkii ay bannaanka ku arkaan iyo amarkaasoo durba dhaqan galay. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkaan u qaad. waa habeen axada isniin ay soo gelayso taariikhdu waxay tahay 5 bisha 4 Abriil sanadka 2020. intaad maqasheen waxaa caawi noola diyaaraa wariyaheenna Cabdisataar Xaaji Cali. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Yunis Duraan Cali. habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsanna. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad loo soo qabtay kufsi dhowaan gabdho yaryar loogu geystay degmooyinka Afgooye iyo Balambal oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. xeeralyaha guud ee dalka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay kiisas kufsi ah oo loo geystay gabdho aad u yar kuwa oo maalmo ka hor ka dhacay degmooyinka Afgooye Balambal oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. xeeralyaha ayaa sheegay in dhacdooyinkan ay u soo qabteen dad badan dhowaanna maxkamad la soo taagi doono. dhinaca kale Suleymaan Maxamed Maxamuud xeeralyaha guud ee qaranka ayaa digniin u diray odayaasha isku dayaya in kiisaska kufsiga ay xal ka galaan. xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka uu soo gaaray uuna hayo kiisas kufsi ah oo 3 ah oo loo geystay gabdho sabi ah oo da'doodu kala tahay 3 jir 4 jir iyo 7 sano jir. falkaas kufsiga ah waxa uu ka dhacay degmooyinka Afgooye iyo Balambale. xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka asoo gudanaya waajibka saaran waxa uu markiiba faray hay'adaha booliiska iyo hay'adaha baarista in si dhaqso ah loo soo qabto dhammaan eedeysanayaasha ku eedeysan kiiskan. waxa uuna si maalinle ah u hagayaa baarista ay wadaan hay'adahan ku shaqada leh. dad badan baana loo xirxiray oo u xiran kiisaskaas waxaana socota baaristii loogu talagalay taas oo maxkamad lagu horgeynayo. xafiiska xeeralyaha waxa uu uga digayaa odayaasha iyo nabadoonnada ay niyaddooda ku jirto inay kiisaska kufsiga oo noocaas oo kaleeta inay ka galaan waan iyo wada hadal iyo wada xaajood. xafiiska marna kama aqbalayo hay'adaha baarista iyo booliiskana wuxuu amrayaa qof kasta oo isku daya in uu farageliyo ama waan uu ka galo ama wada xaajood uu ka galo kiisaska noocaas oo kaleeta in la horkeeno maxkamadda si loogu ciqaabo falkaas uu galay. toddobaadkii aan soo dhaafnay ayaa degmada Afgooye waxaa kufsi loogu geystay gabdho aad u yar kuwa oo da'dooda lagu qiyaasay 4 jir ilaa 3 sano jir. gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan ilaalada madaxweyne Waare ay weerar ku soo qaadeen. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinta inoo haya. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo diidan inuu xilka wareejiyo isla markaana ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo galabta shir jaraa'id qabtay ayaa wax uu sheegay in maanta ay weerar ku qaadeen
ciidamo ilaalo u ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale cali maxamed caraale waxa uu sheegay in ciidamadii maanta weerarka ku soo qaaday xarunta ay iska caabiyeen ciidamada ilaalinaya xaruntaasi, isagoona sheegay in ciidamada amisom ay ka qayb qaateen dagaalka. gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale sidoo kale waxa uu sheegay in labada ciidan ay isku hor fadhiyaan gudaha magaalada beledweyne, isla markaana wuxuu baaq u diray madaxda dowladda Soomaaliya. waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago weerarkii saaka ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka hiiraan. xarunta hadda aan fadhiyo ayaa saaka waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo staff u ah madaxweynaha hirshabeelle ama ka amar qaata madaxweynaha hirshabeelle. saaka markay saacaddu ahayd 9:00 subaxnimo waxay soo qaadeen weerarkaas alxamdulilah waxba kumaysan dhiman. waxay iska caabin kala kulmeen ciidamada ilaalada ka ah maxaan ku idhahdaa xarunta maamulka gobolka iyo ciidamada amisom. waxaan u mahad celinaa ciidanka amisom oo runtii qayb weyn ka qaatay saaka inay difaacaan xarunta hadda aan fadhino iyo xarumaha kale iyo xafiisyada dowladda oo mar walba u heelan inay ilaaliyaan madaxda dowladda. waa u mahad celinaa. waxaa kaloo baaq u diraa ciidamada dowladda ee fadhiya gobolka hiiraan noocay rabaan ha noqdaan inay fadhiyaan meelaha ay fariisimada u ah, inay ilaaliyaan amniga, inay joogaan xarumahooda. waxaa kaloon maxaan ku idhahdaa faraya ciidamada amisom inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo amniga ka socda gobolka hiiraan, inay si gaara ula socdaan. waxaan mar labaad u soo jeedinaa baaq dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah u soo farageliyaan. hadda la joogo xaaladdu way cakiran tahay. waxaa is hor fadhiyo ciidamo qaarkood ay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda oo la adeegsanayo oo loo adeegsanayo dagaallo aan sharci ahayn. sidaa darteed in si degdeg ah lagu soo farageliyo aad iyo aad ayaan uga xumahay. shaqaaqooyinka noocaas ah waanu ka hadalnay. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa dhowaan xilka ka qaaday cali maxamed caraale, gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan, isagoona qaadacay xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweynaha maamulkaasi. safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa hay-adda nabad sugidda soomaaliya ku eedaysay inay weerar ku tahay warbaahinta madaxa bannaan. yunis duraan cali ayaa faahfaahinta inoo haya. safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ka hadashay maanta war maalmo ka hor ka soo yeeray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ka oo ahaa in weriye haaruun macruuf oo ka howlgala laanta afka soomaaliga VOA uu leeyahay xiriir khatar ku ah amniga qaranka soomaaliya kana gudbay nidaamka warbaahinta. qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay nisa inay weerar ku tahay madax bannaanida iyo xorriyadda saxaafadda iyadoo ammaan u jeedisay safaaradda kaalinta wariyeennimo ee Haaruun Macruuf. qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa u qornaa sidan: Haaruun Macruuf waa wariye ixtiraam mudan oo xirfad sare leh, waa mid ka mid ah wariyaasha ugu saameynta badan. weerarka nisa wuxuu hanjabaad u yahay saxaafadda xorta ah iyo madax bannaanida oo aas-aas u ah dimuqraadiyadda iyo xisaabtanka dowladnimada Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda. hadalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa jawaab u ah qoraalkii dhawaan ka soo baxay nisa ee ka dhanka ah wariye Haaruun Macruuf, taasoo si weyn dad badan uga falceliyeen. labadii bishaan ayay nisa qoraal ku daabacday barteeda Twitter-ka waxay ku sheegtay in wariye Haaruun Macruuf tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadayso iyadoo ku eedeysay in uu leeyahay xiriir khatar ku ah amniga qaranka kuna kacay fal ka baxsan anshaxa warbaahinta. wariye Haaruun Macruuf weli kama jawaabin hadalka ka soo yeeray hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. dad badan oo ka howlgala warbaahinta Soomaaliya ayaa hadalka nisa ku tilmaamay mid loogu hanjabayo wariyaasha gudaha dalka ka howlgala oo aanan ahayn mid loogu dan leeyahay wariye jooga Washington. ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan qarax shalay ka dhacay Jowhar waxay ku soo dhigeen gacanta. Bashiir Cali Daahir ayaa magaalada Jowhar ka soo waramay. howlgalkan baaritaanka ee ciidamada nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka fuliyeen xaafadaha magaalada Jowhar ayaa waxa uu mid ay ku baadigoobayeen kooxihii ka dambeeyay weerarkii qarax ee maalintii shalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Jowhar ee hogaaminaya howlgalkaasi ayaa sheegay inay ku soo qabteen tiro dhalinyaro ah kuwaasoo baaritaan lagu sameynayo qaybo ka mid ah kuwa kalena la sii daayay. waxaana howlgalladan ay tilmaameen
tilmaameen saraakiisha nabad sugidda ee ka howlgala gudaha magaalada jowhar inay sii socon doonaan ilaa laga hortagayo weerarada. dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cismaan bare maxamed ayaa maanta booqday isbitaalka magaalada jowhar kaasoo uu ku booqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle iyo dad shacab ah oo ku dhaawacmay qaraxii maalintii shalay ka dhacay bartamaha magaalada jowhar. waxaana gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cismaan bare maxamed ugu baaqay laamaha amniga in ay gacanta ku soo dhigaan ciddii ka dambeysay weerarkaasi. hay-adaha amniga waxaan leeyahay dadkaasi dhibkaas u geystay muxuu ahaay tilaabo sharciga waafaqsan laga qaaday amniga aad loo sugo maadaama xaalad yacni kala guur lagu jiro dalkana uu ku jiro xaalad muxuu ahaay degdeg uu ku jiro. waxaan leeyahay hay-adaha amniga dowlad goboleedka hirshabelle jiifka kaca ee dadka shacabka difaaca muxuu ahaay dadka amnigiisana ilaahay ka soo adinka ayaa idin sugayaan. marka hore maanta waxaan soo booqanay dhaawacyadii shalay casarkii bombadii ka qaraxday boostaajyada magaalada jowhar. runtii 5 ruux ayaa ku dhaawacantay, qofna waa ku dhintay. dadkaas waxaa ka mid ahay xildhibaan Zakariya Muumin Hidowla oo xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle ka tirsanay. runtii qalin yar ayaa lagu sameeyey. aad iyo aad ayuu muxuu ahaa runtii xaaladiisu u fiican tahay. waa dhaqaatiirta noo sheegeen waa lagu guulaystay. dad kaloo iyagan dhaawacyo fudud ay soo gaareen iyagana isbitaalka ku jiraan iyagana aad ay fiican yihiin. sidoo kale waxaan tacsiinayaa qofkii dhintay dadku ka dhintay. waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo, bedelkiisa oo khayr qaban Allah idin siiyo. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna nooga soo warrama magaalada jowhar. caruur iyo dumar lagu laayay dagaal beeleedyada ka socda gobollada shabeellada hoose iyo jubbada hoose. haddaba maxaa xilligan ku soo beegay soo cusboonaysiiyey dagaal beeleedyada? warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna xuseen cabdulle maxamed. deegaanada Fuuma, Kooyaame iyo Shabeelle oo qiyaastii 40 ilaa 50 kiiloomitir galbeedka uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo magaalooyinka Wallaweyn iyo Diinsoor oo ka kala tirsan gobolada Baa iyo Shabeellada Hoose waxaa ka socda dagaal xun oo saqiiro gowrac iyo urduxata ah oo u dhaxeeya beela halkaasi wada dega. 3 toddobaad ee la soo dhaafay magaalooyinka Kismaayo, Diinsoor iyo Wallaweyn waxaa ku dhintay ugu yaraan 150 qof, kuwaas oo qaarkood ku dhintay dagaalo ay galeen halka qaarkoodna loo dilay aanooyin qabiil. dadka dhintay 13 ka mid ah waa caruur ka yar da'da 10 sano halka 8 ka mid ah ay yihiin dumar qaarkood uur leh. sidoo kale waxaa ku jira odayaal waayeello ah oo gaaray da'da 70 sano. qaar ka mid ah caruurta iyo dumarka la laayay waxaa loogu tagay guryahooda iyo dugsiyada quraanka, waxaana dilkooda loo adeegsaday rasaas iyo gowrac. beelaha qaar ee dagaalka ku jira ayaa baraha bulshada ee internetka soo dhigaya muuqaallo ay ka soo duubeen dad ee laayeen oo ay ku jiraan birmageydo, waxayna u arkaan jab iyo guuldarro weyn oo ay gaarsiiyeen dhinaca ka soo horjeeda. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in caruur badan iyo dad kale oo waayeello ah oo aan dambi gelin la laayay, boqolaal kalena ay barakaceen. dad badan dhintay oo labada dhinac ah. caruur yaryar la dili, ilmo yaryar oo muxuu ahaay hada waxa la sheegi karin waa ilmo yaryar oo wax makasta haween dadka noocaas ah la dili. dad ilaa 25 far u dhaafaa dhintay oo ay ku jiraan 9 qof oo magaaladii oo nabadda inta ka shaqo tagay baadiye si ka shaqo tagay shaqadooda ku maqnaa kadib magaalada markay waxay soo shaqaysteen soo islaayeen jidka loo galo la dilay. waxaa ka mid ah dad magaalada cawada ay ka dhacaysay aan ka qaxin oo maata ah oo nimankaas dadkaas la dilay markii la maqlay kadib guryahooda lagu laayay oo looga aaray nimankaas dadkaas la dilay looga aaray. ma farximo weyn ka dhacday meesha, waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa dadkii iyo eheladii dadkoodaas ka dhintay sawir iimaan Allah ka siiyo. waxaa hubaan ah cid kasta oo dagaalkaas furisay inay dambiilayaal yihiin. waxaa aad u yar dadaalka ay wadaan maamulada koonfur galbeed Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna qayb ka noqdeen dadka diraya baaqyada ku aadan joojinta colaadahaas halkii ay ahayd inay ka shaqeeyaan joojinta dhiiga daadanaya. Senator Iftiin Xasan Baasto oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay qof kasta oo colaadaha socda joojin karta inay ka qayb qaadato sidii loo badbaadin lahaa birmageydada la laaynayo iyo dhalinyarada isdilaya. waa dagaal ahli ah, dad walaal ayaa meesha ku dagaalamayo oo ehela oo xigaal ah oo dad hadda maanta aan ku dhigi karo waxaasay ruusan yihiin waa dhaafisan tahay. marka waxaan leeyahay baaq nabadeed baan dirayaa oo labada dhinac ah oo deegaanada odayaasha Soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeeda inay arrinta ka qayb qaataan
arrintaa gurmad ka sameeyaan la joojiyo dagaalkaas waa dagaal ahli ah waa dagaal walaal waa dagaal sokeeye waa dagaal xigaal ah dadka isdilaayo ma aha wax micno maanta isku hay male dadku maanta Soomaaliya carradu waa ka badantay wax la isku digaalayo wax la garan kara ma aha waxaan leenahay war allahin allah duu yahay joojiya dagaalka labadiina dhinac oo walaalaha oo heelka oo mas'uuliyadooda aan hayna anagu waxaa dib nagu filan inta meesha maanta ku dhimatay inta ku dhaawacmay usbuucdan iyo bariyaha meesha dagaalka ka socday waxaan ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo dadka walaalaha oo ku dagaalamaya meesha waxaan markasta ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka waa ku dhimay oo kugu dhimay waxa la dilay waxa la soo dilay waxaan garan karnaa maaha odayaasha dhaqanka ee qaar ka mid ah beelaha dagaalamaya ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalada socda ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dana dhaqaalo iyo mid siyaasadeed ka leh halka qaarkoodna ay sheegeen in lagula dagaalamayo hub dowladeed iyo mid maamul goboleed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga arrimaha gudaha ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa toddobaadyo kadib markii la laayay birmigeeda badan soo saaray war saxaafadeedyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalada socda xilli goobaha lagu dagaalamayo meelo aan ka fogeyn ay joogaan ciidamada qaranka iyo kuwa Jubbaland Kismaayo iyo Walaweyn oo ay dagaalada ugu daran ka dhaceen weli waxaa ka socda abaabul dagaal waxaana dhinacyada u imaanaya gurmadyo mana jirto cid ilaa hadda ku baxday dagaaladaas sidii loo joojin lahaa marka laga reebo baaqyada warbaahinta loo marinayo waxaana dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland lagu dhaliilay siday u wajaheen arrintan halka wararkaasi habeennimo aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho iminkana ku soo dhawaada warkii dibadda warshada isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso madaxweynaha Philippines ayaa laamaha amniga ku amray inay toogtaan qofkii ay bannaanka ku arkaan iyo amarkaas oo durbaba dhaqan galay madaxweynaha waddanka Philippines ayaa amray in laamaha ammaanku ay toogtaan ciddii jabisa amarka bandowga ah ee dawladdu ku soo rogtay dalkaas sababta ay dawladdu bandowga ugu soo rogtay ayaa ah cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu ku sii fido waxaana maanta ciidamada booliska dalka Philippines ay toogteen nin da'diisa lagu sheegay 63 sano kaas oo la sheegay inuu u hoggaansami waayey amarka ciidamada wararka qaar ayaa ku waramaya in ninkani uu ahaa qof madaxa looga jiray laakiin madaxweynaha Philippines ayaa amarkaa bixiyey dhawaantan waxaana muuqata in durbaba ay fuliyeen amarkaas ciidamada ammaanka guud ahaan waxa ay gaadheen dadka u dhashay waddanka Philippines ee ku dhacay cudurka COVID-19 ilaa 300,000 oo qof iyadoo dadka u dhintayna ay gaareen ugu yaraantii 50 qof oo reer Philippines amarka madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu adkaa ay bixiyaan madaxda caalamka tan iyo intii uu dunida ka dilaacay cudurka COVID-19 warkii habeennimo kala socoteen idaacadda kulmiye inta ayuu ku dhan yahay sida aad ogtihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda